hore waxaa uu jiri jiray dad suuriye wata kuwa bustoolada wata kuwa wax dhaca kuwa wax qashqashaada jiri jiray maadaama ay jiri jireen sidii noogula keenay ciidamo waaye niman la leeyaho dhallinyaraa oo badan oo aan aragnay magaalada xaafadeenna ku jira wixii dhibaatana haysa jiray oo yacni aanan gabar u dira karin qudaar yar inay noo soo gadato xamar goxaa laga goosaar laga dhigtaa qudaarta la kariyo gabar yar haddaad u dirto qudaar waa laga qaadanayay sida dhallinyarada noogula keenay waxaanu arkaynaa ayaamahan gabdhihiiyo dahabka qoorta ugu xiran yahay oo saa u xarakoonaya ayagiioo lacag doolara saa gacanta ugu wato jidka maraaya intaana waxaa lagu helaa sugnaanta amniga waxaan aragnaa dhallinyaro fara badan oo annaguba aan ka cabsayno dhinac uga mugay jidka ku socdaan aan dhinac uga leexayno oon islaanama kuwa wax qaadi jaraya balaayadaanu illee ma ahana waa kuwa dawladda ka socda oo sharaf leh oo naga gurbiyey wixii saqajaanahay amba xashiishka cabi jiray amba koollada cabi jiray amba dadka dhici jiray amba tuugadahay amba qora watay amba bustoorad watay ama toorrey ku qaraamay ama dhala u jabsaneed ool inta naga gurbiye magaalada nadiif mar haddii ammaan la yidhaahdo shaqada waxaa iska leh ciidamada qalabka sidaa iska leh ha ugu horeeyaano ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ciidanka nabad sugidda Soomaaliyeed oo labada hay-adood oo mar walba u taagan sugidda amniga sidaad ogeedeenba maalmihii dhexe sida lagu soo bandhigay meediyaha waxaa la yidhaahdaa ciidamada nabad sugidda waxa ay soo qabteen oo waxaa la yidhahdaa ay soo bandhigeen niman bastoolada caaga iyo kuwa kale oo fabrication dadka ku dhacay oo ku isbaaraysanayay ayaga iyo moobeeladoodii iyo waxyaalihii ay dhaceen dhammaantood la soo bandhigay marka waxaa nagala shaqeeya ka maamul ahaan annaga labadaas ciidan oo runtii ammaanka aad iyo aad maanta aan dhihi karno waxa aan ku faani karno ay tahaba dhinaca amniga haddaan nahay reer Howladaga aan nahay waxaan ku faani karno ay tahaba sugidda amniga shaqadayda waxaa ka soo ruuxi jiray galabta 9 saac 10 saac meelahaas waan ka soo hoyaadi jirnay telefoonada intaa soo qarsano wixii aan wadano farqaha ku soo qarsano laakiin caawa waxaaba ku faraxsanahay xilli dambe ayadoo ah saacadu hadda waqtiga tahay waa labadii ama ka sii badan waxa aan wato waa telefoonkeyga dahab aan wataa wax walba isticmaalaa saaca raba habeenkii 6 saacadood inta maraa ku faraxsanahay shaqada waan ay qabteen maamulka degmadooda waxaan saarnaa xooga sida labada og yahay shabaab horta waa iska cadow ummadda Soomaaliyeed kuwaasi maxaa la yiraahdaa waa dad loogu talagalay in meeshii lagu arko lagu beegsado oo runtii ciidankan ay runtii u carbisan yihiin shabaab kali ma ahan walaa tuugada laftirkooda laana mar haddaan la helin amni haddaan la helin qofka degan degmada Howladaag suuqi bakaaraha weyna uu ku yaalo oo si nabada inta uu saaka ku soo kalaho shaqadiisa ku tago ugu ganacsado oo ku soo laaban karin waxaan isleeyahay xilliyada qaar marka loo fiiriyo tuugadu waa caqabad aad u weyn oo in lala dagaalamo u baahan waana runtii lala dagaalamo oo waa la soo qabtaba meelo badan waa laga soo qabtay xooga marka nooma kala socon labadooda shabaab iyo tuugadaba waa laba cadow ummadana cadowga ah tuugu jidku taagan yahay inuu ummadda dhaco isbaaraysto waxay haystaan ka qaato shabaabna inay ummadda laayaan oo dilaan marka labadooda waxay isku keen dhamaan ma lahan waa maxaa la yiraahdaa waa beegsanaa si toosan u beegsanaa
oday sidiisa waa oday mid saqajaana waa isaga jiraa oo qalad samaynaya laakiin oday wuxuu doorku leeyahay inuu dhiirigelin sameeyo inuu ku abaabulo dhalinyarada oo maaragtaa u sheego oo yidhaahdo haddii la kurinaya maha anaa khatarahe wax ka qabta wixii qaldan ay soo gudbiyaan soo qabasho shaqo kuma le oday waxba ma qaban kariyo orod kuma qaban karo awood ciidanna ma leh oo kuma qaban kariyo laakiin muxuu leeyahay oday inuu yidhaah inuu hoos u soo sheego inuu soo orto xafiiska nabad sugidda yimaado warmahaasaa wax ka jiraan warmahaasaa wax ka jiraan warmahaasaa wax ka jiraan fariimaha inay soo gudbiyaan oo sida looga ilaaliyo dadka qaladka ka gelaya dadweynaha bulshada dadka wax u dhibaya inay ka ilaaliyaan ayaa doorkeennu yahay inaan teleefanadeen waa kuwana farqahan ku wadanaa waa meelahan la fariisanaa maqaayadahan qaybtana shaaxan isaga caweynaa laakiin markii hore intaan guryaha ugu soo tagan ayaan waxaan ismayn jirnay inaan soo aadno meelahan oo kale inaan lacagahaba ayadoo kaash aan soo qaadan marka taas waxay caddaynaysaa in farqi weyn oo xagga amniga ah iyo isbeddel aad weyn oo la taaban karo ay ka geysteen waxayna ay la tahay ka dhalinyar ahaan waxaa lagu gaaray laamaha amniga wada shaqayn dhow la sameeyey dhalinyarada oo aniga siday la tahay xaafadaha degmada Howlwadaag shacabka degan ama bulshada degan anoo ka mid ah odayaasheeda ka mid ah waxaan rabaa inaan bogaadiyo maamulka degmada Howlwadaag iyo ciidamada amniga iyo shacabka dhammaan sida ay u wada shaqeeyeen waayadan dambe haddii aan soo qaato waxaa dhacay oo dhacdooyin joogtaan noqday moobeel la qaado tuuga meel halkaana xalay gabar lagu furtay xabadaha la isku riday maxay ahayd waxaan ognahay cid dhan oo inta dahab laga furtay gurigay lahaayeen darteed dhacitaankaas la dhacay ka guuray meel loo raacana la waayay isku soo duub waxaan rabaa sida looga shaqeeyo maamulka degmada Howlwadaag iyo shacabka ay wataan iyo ciidamada amnigu isugu xirmeen oo looga shaqeeyo arrintaas waxaan u arkaa in laga shaqeeyo meeshii nabad taallo waa loo hayaamaa nabad darradana waa laga hayaamaa waxaad moodaa marar dhoweyd xoogaa hayaan inuu nagalay degmada Howlwadaag laakiin hadda markii la waabaristo la isugu yimaado meelaha fagaarooyinka la isugu yimaado kafteeriya la isugu yimaado wax annagu ciidan ma nihin laakiin dawla ayadaa gacan dheer habka looga shaqeeyana ayadaa taqaana inaan wax akhbaaro cusub oo xaafadda ku fool leh oo ama dilaay ah ama gabar la dhacaya dareenkeedu waa yara sida ay u yimaadeen ciidamada nabad sugidda ama ciidanka dharcadka u yimaadeen ilaalada shacabka maxaa la yidhaahdaa waxaan aaminsanahay inaysan jirin dilal qorshaysan iyo qofaa goobtiisa lagala baxa iyo qofaa la dhibaateeyo wax la gaarsiiyo sababtoo ah suuqa weyne bakaaraha waxaa awoodda la isugu geeyey sidii amnigeeda loo xaqiijin lahaa runtii waana lagu guulaystay in maanta suuqa bakaaro uusan ka jirin wax dila leh oo qof walbo maanta mas-uul aan aaminsanahay inta si nabdoon uu ku baxo ku tago inuu inta kaga soo dukaamaysto inuu kaga soo laaban karo taasi waa huwa waana rajeynaa inay sii socon doonto hadduu ilaahay insha allah